حاجر وحلي راهدو mind limitations maskaxda qofka bilowaadanka oo lagu xiro limit aad moodo inaysan dhaafi karin haddaan nahay Soomaali in badan oo anaga naga mid ah ama ogow ama ha ogaaneen waxaa kugu jira limitation lagugu xiray in yar oo anaga naga mid ah ayaana fahansan tusaale waxaad arkaysaa qof Soomaali oo caqli badan oo aqoon badan oo dadnimo badan oo aan arki karin in uu compete gareeyo ama la tartamo qof kale Soomaaliya ma hadduu dukaan meel ka furto hadduu real estate meel ka furto maxaa u diiday qofkaas inuu adduunka kale la tartamo maxaa u diiday qofkaas inuu arko oo uu ka xanaaqo oo uu damiirkiisa iyo dadnimadiisa geliyo sidee bay u dhici kartaa in aan 65 sano noolahay qofuna uu sameeyo 65 sano dhaqaalahan sameeyay muddo ka yar week seebay ku dhici kartaa qof inuu intaas oo aqoon adduunka uga tago aniga intaas noolaanayo aysan uga dhicin seebay u dhici kartaa inaan adduunka waxba ku soo kordhin in aan anigu adduunka wax ka qaato maahan haddaba marka hadduu qofku saa u fikiro waxaa dhacaysa mind limitationkiisa ama maskaxdiisa inuu u diido limitationka maxaa yeelay qof ka fiican ma jiro waxaan rabaa kula sheer garaynaa 3 waxyaalood oo haddii aad samayso maskaxdaada limitationkeeda u yaraanayo number 1 iska ilaali in aad la associate garayso oo saaxiib ka dhigato qofan meel u soconin dadka meel aan u soconin waxay rabaan sidaad ayagu u fadhiyaan oo kale inaad u fadhido number 2 waxa ogaataa inaad haysato waqti yar nolosha ha aaminin inaad waqti badan haysato waxaad haysataa waqti yar nolosha ha ogolaanin inaad waqtigaaga yar iskaga cayaarto the third things maxaad isweydiisaa nolosha legasiga aad ka tegaysa maxaa lagugu xasuusan doonaa